بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وسلامتين. waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo wixii soo kordhay 48 saacadood ee ugu dambeysay. xaaladaha soo kordhay waxa waaye 69, waxaa lab ah 48, waxaa dhidig ah 21. tiradaas aan sheegnay dadka positive ka noqday meelaha ay kala joogaan waxa waaye Banaadir oo 39 qofood ah, Somaliland oo 11 ah, South West oo 8 qof ah, Puntland oo 8 qof ah, Hirshabeelle oo 2 ah iyo Galmudug oo 1 ah. dadka laga helay xaaladahaas da'dooda inta u dhaxayso haddii aan kor marno waxa ilaa 20 sano jir ah boqolkiiba 24, boqolkiiba 36 da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 39, boqolkiiba 36 waxay da'dooda u dhaxaysaa 40 ilaa 59, 60 sano iyo ka badan waxa waaye boqolkiiba waxay ka yihiin 14. tirada guud ee dalka xaaladaha COVID-19 positive waxay noqonayaan 997. dhimashada waxaa ku soo kordhay Allah u naxariistay 4 qofood oo 2 ay ku geeriyootay Somaliland, Allah u naxariistay, Puntland 1 qof iyo gobolka Banaadir oo 1 qof. Ilaahay u wada naxariistay, sabir iyo iimaan Allah ka siiyay intay ka baxeen. tirada guud ee dhimashada waxay isugu tagaysaa 48 qofood. waxaa ka bogsooday cudurka 4 qofood. tirada guud ee dadka bogsooday waxay noqonaysaa guud ahaan 110. sida caadada noo ahayd inaan isku waanino oon isku dhiirigelino inaan cudurka ka hortagno, in ma aragtay meelaha ciriiriga aanan la tegin, in afka la daboosho marka baabuurta la raacayo ama banaanka loo baxayo ama dad la dhex fariisanayo, in la kala dheeraado, in gacmaha saabuun iyo alcohol iyo wax allaala wixii qofka heli karo isaga nadiifiyo ilaa iyo 20 second iyo ka badan. in ma aragtay qofka gurigiisa uu joogo uusan bixin haddii aysan ahayn wax muhiim ah oo ku qasbayo qofka inuu baxo. in la dhageysto calaamadaha cudurka iyo sida lagu kala qaado iyo sida loo xakameyn lahaa. in laga ilaaliyo cudurka dadka waayeelka ah ama dadka qaba cudurrada chronic diseaseska loo yaqaan cudurrada raaga, sababtoo waa iyaga kuwa u nugul jirrada oo hadhow markii ay ku dhacdo laga yaabo inay yacni xaalad adag ay galaan. in ma aragtay lagu dadaalo in wax walba oo la sameyn karo oo lagu xakameyn karo cudurka siday takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dadka u leh expertise ay noo sheegeen inaan dhageysano. qofka haddii uu isku arko calaamadaha qaarkood ee cudurka inuu wacan karo nambarada loogu talagalay freega ah inuu wacdo si uu talo caafimaad u jeesto. ilaahay waxaan nooga baryayaa inuu cudurka naga haayo annagana aan wada dadaalno insha Allah tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.